maalin wanaagsan ku soo dhaw barnaamijka Connected Case barnaamijka waxaan ku wadaagnaa arrimaha ganacsiga ee ka hadalka u baahan sheekooyinka saameynta leh iyo ganacsiyada Soomaalida ee istaahila in la baahiyo in ganacsi la sameeyo ma aha hawl fudud sidaas la midana ganacsigaas hadii uu hirgalo waxa uu noqdaa waxa ugu badan ee hanti laga sameyn karayo ganacsiyada ka shaqeeya qurxinta wajiga iyo iibka labiska dumarku waxay ku soo kordhayaan dalkeena mudooyinka ugu dambeysay si aad ay u soo kordhayeen bil walba iyo sanad walba barnaamijka maanta waxa noogu martay Faadmo Cabdilaahi Kamadiid oo maamulaha iyo aasaasaha ganacsiga leedahay Warsan waa ganacsiga ugu caansan uguna ballaaran ee qabta ama bixiya adeega qurxinta wajiga iibiyana labiska dumarka waxyaabaha u sahlay ganacsiga noqdo ganacsiyada ugu caansan waxa kamid baraha bulshada waxay ku leeyihiin in ka badan 100,000 oo follower sida Facebooka iyo Instagramka waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka Faadmo Cabdilaahi Faadmo ku soo dhaw barnaamijka dawada maadsantahay waxaan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga aad noo hortay iyo saad barnaamijka u soo ajiibtay dawada haddii aad ku cusub tahay barnaamijka fadlan subscribe si gambaleelkana ku dhufo si aad mar walba ula socoto muuqaalada aan soo gelino page-ka ama account-ka ku leenahay YouTube-ka ee Connected Case waxaan u gudbayaa su'aalaha waxa jira fikrada ganacsi oo badan maxaa la oran karayaa wad ku doorateen fikradan inaad ka shaqeysaan qurxinta wajiga iyo iibka alaabaha dumarku ay ku labistaan walaal waxaan u bilownay fikradana nagu soo dhalisay waxay ahayd markii walaaliyay yimaadeen family u soo guuray 2012 farkiisoo soo guuray waxay ahayd baahi loo baahnaa bay ahayd makeup-ka iyo dharka iyo fashion-ka aniga walaalahayna waligeena waanu jeclayn sida gabar kastaba u jeceshahay fashion-ka iyo qurxinta iyo makeup-ka also walaalahay iyagoo yar 18 iyo 20 iyagoo abay bilaabeen designer inay noqdaan oo fashion show Ingiriiska ku sameeyeen ay waligood macduruuc iyo waxa isku gagaan jireen oo waligeen hooyadena ganacsatay ahayd waligeed alaab iibin jirtay marka waxaan ku soo kornay ku soo barbaarnay marka Hargeysa nimidna wixii loo baahday bay ahayd waxaan u bilownay si wanaagsan gormal asaasay warsan waxa meherad igu horeysay la furay waxay ahayd 2012 December 2012 waa dhamaadkii 2012 markaad ganacsiga bilaabaysay miyay jirtay ciidii ka maalgelisay ama hantidaad ku bilowday faalansada bangiyada oo kale may waxaan ku bilownay waxay ahayd hadbado iyo lacag ururis marka waxay ka dhigan tahay idinka ismaalgelin cid kale idinku ma haysan hooyana way caawintay marka waxa la oran karaa family-gu ama ganacsi wuxuu ka soo jeedaa waa ganacsi qoys ay hooyo hore ugu soo jirtay la koritaanka la soo korteen baa keenay inaad aad bilowdaa sax daadash aan sheegnay inaad tahay qabsho dibadda ka soo noqoso xilmada ka soo noqoto أنا وحنا من 2014 كي جون باني مدام. لما كنا أفريقيا. ها بيش لحد. waxyaabahan la wadaagayo daaqadayaasha waxay tahay in aanad ganacsiga kale ka qoomneen inaad hoorina tahay gabadh xaaslan tahay miyay wax arqalada inta badan dadka ganacsiga ku jira wadada madax banaan wadada aan inta badan qoys ka dambeeyeen صح may waayo obviously way jirtaa odayga ma jooga xaqan so si socod inta badan u baahan jira waan si socdo soo socda laakiin qaabada badan ma jirto waxa fiicnaan lahayd oo isagoo xaqan joogo deel labadeedii jacaylba meel ay wala joogaan bad fiicnaan lahayd si wanaagsan waxaan ognahay warsan inuu ku jiro ganacsiyada ugu caansan Soomaaliland maxaa la oran karayaa way ugu weyn yihiin waxyaabahaas ka qayb qaatay inuu ganacsigu noqdo mid ay cid kasta yaqaanaan waxa kamid ah dadaal horyaraan 2014 markaan imid aad baan 2014 markaan imid aad baan u dadaalay aniga walaalahay 24/7 meheradayga oo joognaa nadaafada iyo waxa ma nihin dad iska meel furtay oo ka maqan markasta fikradaan u keenayna markasta wax baan u keenayna daacad baan u nahay maxaa la daa businesska wax fayga ma keeno damana waa original
markastana diinta iyo dhaqanka iyo always waxaanu dareennaa sida qof naftaada aad jeclaan lahayd in qofkii kuula dhaqmo ina qof la dhaqantid marka macmiishana aad baanu jecelo aad u ilaaliya waayo macmiil la'aan meesha mabay furnaateen marka macmiishu waa number 1 staffkuna waa number 2 ma fahantay hada staffkaaga ilaalisid meeshana waa ku ilaalshamaysaa marka daacadnimo iyo dadaal hadalkaaga waxaa iga soo baxay 3 wax in ganacsiguna guuleysto waxyaabaha laga marmarka wax ka mid ah in qofkii maamulaha ama qof gacanta ku hayay oo dhexda u xidho inuu mar walba dhex taagan yahay ka shaqeynayo ilaalinayo iyo inaad macmiilka u aqoonsan tihiin muhiimadda koowaad halka shaqaaluhu yihiin muhiimadda labaad kama shaqeysaan oo kaliya taa adeega qurxinta iyo inaad xibisaan waxa jira dugsi lagu barto qaabka loo sameeyo qurxinta wajiga dugsiga xilma la asaasay waxaa la asaasay 2015 January hada si fiican u xasuusto 2015 bishii koobaad hada si fiican u xasuusto waxaan ku asaasnay waxay ahayd 6 biloodan joogay problemo badan oo make-upka boqol jeer horena waan ka soo kulmay dadku inay caqabadaad kala kulantay ila fahmi waayeen make-upkii marka waan iibinaynaa laakiin dadkii ma fahansana marka waxay noqotay inaan dadkii barno classiyada simple sameeyno markii dambana classyadii baanu badinay si dadku ugu shaqeystaan amba de walaashayo kale business badanna waa laga furay iminka Hargeysa markaan nimid 2 coffeer baa jiray marka 2 coffeer 3 coffeer baa jiray laakiin sidoo make-up ka caan u ahaa uma ahaan jirin marka since for the last let's say 5 years kiina si fiican bilkasta waxaanu barnaa 300 qof ma fahantay marka dad badan baanu barnay Djibouti ilaa Muqdisho ilaa Ethiopia ilaa Wajaale meel kasta nologa yimaada iskuulkayga marka ujeedka u samaysan waxa tsaalaan inay dadku bartaan waxaanad haysaan inay iyagu ku shaqeystaan ganacsi kale ku abuuraan labadaba waxay haysay u bartaan waxaanu hayno markii dambe waxaanu aragnay baahida loo baahnaa markaasaanu barnay si iyagu ugu shaqeystaan labadaba laakiin number 1 waxay ahayd sid alaabta loo fahmo markaanu aragnay dadka inay fahmayaan classyadii baanu balaarinay si dadku ugu shaqeystaan dad badan oo ku shaqeystaan imanka meherado badan baa lagu furay oo warsan school laga soo baxay ma sha Allah dad yoga aydan barteen ee ganacsiyada ku sameeyay miyaad dareenteen in macmiilka idin la wadaagay culays saas miyaad culays saas dareenteen may waayo dadkii badan yihiin ma fahantay anna waxaan I believe that inay qof hadda caawintid inay adigaagani wax ku noqonayso waxa lagu oran jiray hadda dadka bartid meherad bay ku afriyaan oo customer-kaaga laga xadaya may noqon sheekayso marka sanad kastaba customer-kayga way kordhayaan sanad kastaba lacagtayda iyo dadkayga iyo customer-kayga iyo hablihiina 2 3 4 ilaa maanta waxaan 15 make-up artist oo meherad lagu leeyahay waliba kordhi marka waxay ka dhigan tahay inaad ka qayb qaadateen shaqo abuurka waliba shaqo abuurka dumarka yes ma sha Allah happy waan ku ahayntaana dukaanku Hargeysa uu ka furan yahay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya mise xarun gobolada kulli may Hargeysa uu ka furan yahay laakiin Facebook markaas waxa lagu leeyahay Borno kaale Booramo kaale Djibouti kaale laakiin waxaan isri burcaya meelaha si fogaan imika horyaraan cagaha dhig marka qorshaha koobaad ganacsigu waa in qaybaha Hargeysa ay ku leeyihiin xarumahaasi la awoodeeyo oo si fiican loo shaqeeyo kadibna maybe future ahaan inaan tagno meelaha kale Nairobi iyo meelaha kale insha Allah miiraan meelaad higsanaysaan oo idin inaad gaadhaan oo qorsheynaysan mustaqbalka wax badan ma qorsheynay insha Allah shirkadu adeegyada aan sheegnay kaliya tama qabato waxyaabaha waxa kamid ah in waxyaabaha loo isticmaalo qurxinta wajiga inaydun halkan keenteen oo iibisaan ma jirtaa way jirtaa waxa cusub oo soo kordhiyay meherada ku soo kordhinay waxa weeyaan wholesale oo jumlad inaan lagu iibiyo cali gobnimo iyo meheradaha dhan laakiin cali gobnimo waxa weeyaan jumlada Forever 52 anaka wakiilaha jumlada Somaliland oo dhan
anaka noo xiran tahay companygaas noo xiray originalka waliba fake badan baa jiro Sacuudiga iyo meelo badan laga keenaa iyo Malaysia Thailand ba laakiin Forever 52 kaliya warshadu keenta waxay ka keentaa Dubai weeyaan companygeedu laakiin waxa lagu soo sameeyaa meelaha kale so like for example foundationka meelba wuxuu ku fiican yahay qofkii ka dalbanaya Dubai ama meel kale ka dalbanaya lacagtu ku soo dalbanaya xagaas buu xagan ku helaya intuu tagay meel kale ama qof dirsanayay buu Hargeysa gudaheed buu ka helaya qiimihii exactly same price ke marka wax la oran karo xusuusan halka qofka waqtiga ka bixi lahaa akhrishna ka bixi lahaa in Hargeysa ku helo wuxuu kaga heli lahaa warshada alaabta soo baxayso waxaanu sameynay Forever 52 company la yiraahdo oo makeup ka sameeya oo Dubai ku taala baan ka noqonay wakiilka Somaliland marka jumlad ahaan inaan wixii Somaliland jooga amba meherad ha ahaato makeup iibinaysa amba ha ahaato coiffeur wixii dhisaya inaanu jumlada iibino tafaariiqdana iibino Hargeysa ahaan soo qiimaha ku heli lahaayeen Dubai ba xaqani kaga helayaan waayo Dubai marka kale for example haday foundation ki ku iibsadaan kabadha 300 dirham intii diyaaradda soo saarayeen cashuurtii xalada lacagtii ay ku soo saareen diyaaradda wax kastaba oo lagu dardarayay intii xaga tageen waxa soo kharash ka baxay lahaayeen bay magaaladooda dhexdooda ka helayaan ka dhigan tahay macaamiisha xaduusaysan inuu waqtina ka baxo kharashna ka baxo wixii ay Dubai ka heli lahaayeen oo halka ay shirkadu ku taala in Hargeysa kaga helaan isla qiimihii iyo isla alaabtii iyo doorasho waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka su'aasha ugu dambeysay Faadimo Madiina xitaay maxaad uga faa'iideysanaysaa waraysigan maanta oo aad macaamiisha la wadaagsa hadaad u hayso salahan dalab oo kale ama aad u hayso ogeysiis oo kale ma jiraan waxaad macaamilka ugu tala gasheen oo barnaamijka ugu faa'iideysanayso si fariintaadu ay u gaadho macaamiishaada macaamiisha fariin kaliya ma haya oo aad ba u mahadsantihiin waayo inanka la'aan meheradu ma bay jireen inanka la'aan de maanta xaqaanu gaadhnay maanu gaadhneen marka aad ba u mahadsantihiin soo dhawaada ama furan mar kastaba هذا مرة واحد كان يقول هالعلية سيدا وقتي كاجا وصورت برنامجك أديكوا معمولي الشركة ده الشقين بدنا أديكوا كحريين مرة بعدين مستحد أنا كان يقول هالعلية هذا ما عصمتي مدو آد بوم عصمتها هدي برنامجك لحظة كقصة بيرتي أما برنامجك كل عصبتها فلان سبسكرايب سي قبل كيرنا كل فساد مرة ولا صعدهم مقالة عنه سوق لنا بيج كانوا كلنا يوتيوب أدبادو mahadsantihiin